تليفونكي حالي مدحوين أردوغان وكوعي محمد بن سلمان waxa uu noqday mid go'aan looga gaaray Soomaaliya isla markaasna way tashan weyday in loo taliyo ayaa go'aan lagu gaaray xog cusub oo hadda dabka laga soo qaaday oo marka aad maqasho aad ku farxi doonto ayaan ku hayaa horta muuqaalkan inta aan ku guda galin sheergare oo meel fog gaarsii shan mar sheergare si Soomaali badan ay u ogaadaan in dalkoodii isbedel weyn uu ku socdo 2026 waxaan filayaa inaad samaysay soo dhawaada like si muuqaalkani channelkana soo raac oo follow siiso aad baad u mahadsantahay inuu guda galno xalay taleefan socday 2 saacadood waxa ku wada hadlay Maxamed bin Salmaan ka xukuumad dhinaca boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweyne Erdogan waxa laga wada hadlay markani ma ahayn dan ku saabsan labada dal iyo waxa ka dhaxeeya balse labadani mas'uul waxa ay si hoose uga hadleen xaaladda Soomaaliya waxa ay isla garteen in Soomaaliya iyo dadka xukuumada ay yihiin dad aan soo dhaweyn diyaarsanayn ku jira xilligii casru jaahiliga qabiil iyo qabyaalad ku maqan ree hebel iyo shafgaraacasho ku maqan dhac iyo waliba xoolo dadweyne oo la xado ku maqan aanan u soo jeedin dalkooda iyo dadkooda oo weerar culus lagu soo qaaday waxaad ka garan kartaa kulanka markii uu soo dhamaaday wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ay sheegtay in ay si hoose u gali doonto xaaladda Soomaaliya waxa lagu baaqay wada hadal Soomaalida gudaheeda ah oo markani boqortooyadu ay marti gelinayso haddaba waxyaabihii la isla soo qaaday waxa ka mid ahaa saameynta Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya iyo sidii boqortooyada ay saameyntaasi ula wareegi lahayd sidii boqortooyada amnigeeda ay uga ilaashan lahayd gudaha magaalooyinka Soomaaliya maxaa yeelay xaaladdu ma sahlana oo Maxamed bin Salmaan casiirka iskama sii cabi doono haddii Israa'iil ay isku ballaariso Soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyiga Soomaaliya iyo badda cas qatartaasi darteed Sacuudigu waxa uu ku qasbanaaday shalay kulankii ugu horeeyay in uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya dhigiisa Mr Farhan ay ku yeesheen boqortooyada kaasi oo loo sheegay in boqortooyadu ay si 100% ugu soo jeedsatay Soomaaliya saameyntii Imaaraadka ee Soomaaliya ayay labadani mas'uul ka wada hadleen isla markaasna waxa la go'aamiyay hogaamiyayaasha maamulada Soomaalida madaxda Soomaaliya ee federaalka dhammaan in lagu shubo dhinaca Riyaad halkaas oo kulan weyn lagu qaban doono si loo gorfeeyo xaaladda maskaxdooda iyo meemorigoodana loo update gareeyo maxaa yeelay maba joogaan baheerka maanta caalamku uu marayo waxa la rabaa in la toosiyo Soomaalida in la kiciyo qarniga la joogo loo sheego in maanta adduunkii uu xoog marayo hadda ay marayso xuduudeeda ma soo gali kartid waa halkaas ma soo dhaafi kartid inaysan maraynin in madaxweyne dal xor qaramada midoobay ku jira gurigiisa laga soo qafaashay ayaa la rabaa in madaxda Soomaalida dhigaha loogu sheego oo la yiraahdo adduunkii nidaamkii iyo kala dambeyntii waa ka dhamaatay bal tooso oo wax qabsada qof kasta oo muuqaalkani uu soo gaaray aragtidiisa qaybta commentiga marka ugu horeysa ha igula wadaago muuqaalkan ha sheer gareeyo oo ha iga fogeeyo maxaa la gudboon Soomaali